السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وإذن سلام يا ولاشي النعيم منك meel walbaad joogtaan waxaa idin leedahay maasha allah haye saaxiibkayga ujeeda maasha allah tabaarakallah waa idin salaamayaa dhammaantiin waa walaashin naciim manalka maasha allah baa idin leeyahay alxamdulilah calaa kulli xaal qof walba muslina wax walba waa soo maraan imtixaankana wuxuu ku koobnaadaa qof muslina unbaa la imtixaama qofaan muslin ahayn lama imtixaamo islaamka dhabta ah ee ehlu jannaha waa la imtixaamaa intuu nolosha adduunka joogo marka ani waxaa idin leeyahay ilaahay ha loo cararo qof walba hadduu doonayo inuu meel gaaro allaha u carar allaha wax weydiiso allaha kaalmo weydiiso bini aadan waxbaa weydiisanin dhib hadduu ku qabto ilaahay u carar runtii haddaad barato xikmadda ah ilaahay u carar waxaa weye ilaahay addoomihiisa dhan uu kuga cabiidinayaa gaalo islaamba wuu kuga cabiidinayaa laakiin haddaad dhahdo may aniga isaan ima anfacayso ma samayn karo ma ku noolaan karo kuma jiri karo kan ood iska waashood ku dhufana mooyaane faa-iido kale ma helaysid marka ilma adeerayaalo ilaahay ha loo cararo maxay ahayd wallaahi alxamdulilah qisada aniga igu barta markuu dhibku haysto cadow badan baad leedahay mar walba qofka mu'minka waa qof cadow badan leh waa qof dhibaato badan haysto had iyo jeer wanaagga loo ogoleen quruxda loo ogoleen nolosha loo ogoleen lacagta loo ogoleen raaxada loo ogoleen farxadda loo ogoleen markastana waa la dhibaateynayaa markastana waxa weeye shaydaanka qof xun buu kusoo jeedinayaa oo xasad ah oo wuxuu qabta laayahay hadda ogow qof xaasida oo aadan weligaa waxba ka hadlaynin waxna ka sameynin baa ku xasdaya sababtoo ah qofka wuxuu arkay inaa macnaha adiga inaa isku filan tahay ilaahay mooyaan cid kale aada u baahnayn dadka noocaas kala ah waxa weeye horta marnaba ma guul dareysto laakiin guusha way dambeysaa always waana kaasoo daahaysaa 10 sano ha noqoto 20 sano ha noqoto 15 sano 5 sano marba waxay ku xiran tahay sidaa u samareysid bay ku xiran tahay haddaad si fiican u samartid oo muxuu ahaa ilaahay ku koobtid dhibaatada ku haysata oo adiga iyo maaragta ilaahay iyo qofka adduunka ugu jeceshahay oo ay tahay hooyada aad ku koobnaatid